dowladda Jubbaland ayaa tan iyo markii la yagleelay ka howlgashay adeegyada aasaasiga ah ee ay bulshada tabayaan iyada oo waqti badan gelisay in marka hore diiradda la saaro waxyaabaha daruuriga ah ee aysan dadku ka maarmin iyada oo waxyaabihii ugu horeeyay ee ay diiradda saartay ay ahaayeen arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo helidda biyo nadiif ah. Jubbaland ayaa intaa ka gadaal markaan u jihaysatay dhanka kaabayaasha wadooyinka iyada oo laamiyo casri ah la hirgeliyay. sidoo kale Jubbaland ayaa markii ugu horeysay hirgelisay wadooyinka halka dhinac ah oo ah kuwa gawaarida loogu talagalay in ay hal dhinac ka soo galaan. taas ayaana ka qayb qaadanaysa yareynta saxmadii iyo gawaaridii isku dhici jiray. Maamulka dowladda hoose oo hawshan casriyeynta wadooyinka gacanta ku haya ayaa fulinta awaamiirta ay soo saareen juhdi badan ku bixiyay iyada oo wadooyinkan lagu arkayo ciidanka ilaalada wadooyinka ee traafikada loo yaqaan oo gaadiidka kala duwan ku amraya in ay nidaamka ilaaliyaan kuna dhaqmaan sida loo qorsheeyay nidaamka marida wadooyinkan halka dhinaca ayay si weyn u soo dhaweeyeen dadka gaadiidka kala duwan ku dhex isticmaala magaalada Kismaayo. saan gabarleena waa arkaysiin gabarida saan la ogolaan saan ma soo gali karaan wax sharci go'an ayaa jira meesha magaalada Kismaayo marka saas ogaada maadaama kalka hore ay wadada zaid u jabnayd gaariyaasha inaga la jireen gaariyaasha mar walba oo geesha saan geeyna ku dhamaanay hadda noolaha jawdada ma sha Allah lagu maadsanyahay si gaar waxa uu maadcelinayaa dawladda ma sha Allah ku maadsiin saay sameeyeen farqi weyn u dhaxeeyo farqiga hore iyo farqigan marka hadda hore jaamku uu tir badnaan jiray maadaama magaalada wada fiican aan lahayn hadeertaan maadaama alxamdulillah laami iyo waxa nolol dhisay shilalkii iyo wixii oo dhan waa kareeraan alxamdulillah jam aan tiro badan ma jiro wadada waa iska caadi waa iska faaruq okay ma sha Allah way jiri jirtay aqaba hore aan ku qabnay jaamka tirada badan oo gawaarida wada xumay iyo waxyaabaas aysan jirtay magaalada hadda ma sha Allah waa wadada waa caadi meel walba iska aadi kartaa magaalada waa wada laami والله horta magaalada wadadan anigu markii aan imi magaalada aan wax yar joogay baa la dhisay ma garat maanta waa magaalo qurux badan oo maartay ma sha Allah quruxdeeda laamigeeda iyo dawaad arkaas waxa laga reesay boorkii iyo siigada ma garat maalmahan imina dameeshan waxa lagu baqtiyay siiga iyo qashin iyo maartay maanta waa magaalo qurux badan oo bilicdeedu ma sha Allah waxaan jeclaan lahaa marka ma sha Allah in la yiraahdo umada meesha joogta ku xamdido aniguna waxaan u arkaa alxamdulillah rabbil caalamiin inay tahay xaalad gaadiidleeda waxaan ugu baaqayaa inay maartay wadadooda iyo maartay maamulkooda wuxuu qabtay ku xamdiyaan oo maartay oo mahad celiyaan wadankooda dalkoodana ay ilaashadaan maartay horumarkana ay maartay ka qayb qaataan waka wadooyinkan aad iyo aad u dhib qabnay ma sha Allah waa u baxsanay wadooyinka dhibaato aad iyo aad weyn ku qabnay ma sha Allah waa mahad celinaya dawladda aad iyo aad ugu mahad celinaya farqiga u dhaxay xagta wadadan ku yar dhibaato aad iyo aad weyn ku qabnay baawurta eber laakiin hadda ma sha Allah waa u baxsanay alxamdulillah